magacaaga ii sheeg marka ugu horeysa aniga cawo xabsigee ku jirtaan wala waxa ku jirnaa marqaadka ajnabiga oo xagee way meeshaas markaa Soodan walaalo bal sidee idin soo qabteen markii nila soo qabanayay xageed ku socoteen walaalo waxaan ku soconay Libya laakiin anaga waxa laga soo qabtay meel la yiraahdo Barti Soodan magan soo galay bay ahayd badanu ka soo degnay badayna ku qabteen anagu ayaama meel ku jirna ku xareysan ayayna soo qabteen waa gartay bal waxaad ii sheegtaa imisa tihiin imisa qofood ayaad ku safrayseen bismillaahi raxmaani raxiim imika inta damban jeelasha ku jira adoo dadka jeelas imika ku jira 200 way gaarayaan Soomaaliya kadana kaba badnayn 300 gaarayeen waa gartay marka maxaa idinku kalifay inaad safar noocan oo kala soo gashaan waxaan ugu kalifay dalkayga shaqo ma taalo waa gartay لكن أنا كلام شقية كل جامعة أنا كولا بحر من الجامعات كبدنا نقوم نشوفه واقرتي مركا أصيبا نوم بدل ما يقول لي جيو واقرتي مركا سببتا إذا قبتين ومركا إذا كنت تهريبيال أيضا هذين السودان أيضا جوكتان مجران واحد مسؤولين أو سفارة السودان صوماليا إذا كنت هاي سفارة يلا توجا ومهربات أو أنت نطورتنا نقول علين ماشي أنا تكسر علينا أي صورة يدي جبلو قصو عليي سودانية تكسر قاعدين ونجم مكة عفمات كنا مصر إيجان أو منو مقطعن أو نو مهدان إثيوبيان كانت عامة والله حدا ما هي سفارة دوت ماذا وحول بيوكل عاصمات كودي إيجان أنا جوانا لا يسا أنا ما إيجو نلو ما يمادو سفارة يدو نجيه نجفر ستا أصلا كنا نجقصتا كوي أن قدرنا يا أصلا نجقصنا يا maxay Suudaan ila qaban kartaa maxay sameyn sameyn kartaa loo eegi kartaa taayada xanuunsata sanadka ugu hayno ayuu wad noogu bariya markaan aan dhakhtar noo geeyo qofka kale ee dhaxlinaya ajnabka halka lagu qabtay sida inoo kala dambiga loogu qabtana safaaradiisa u doota nagama soo agbareegta safaaradda iyadoo ay naga jabtay ma ahayn tiraado wadankiina baa lagu celinaya xal kale ma leeyihiin oo dadaan inagu celinayeen walaalo waliba oo yadi maarifadta iyada maarifada waxa ka shaqeeyay baa maarifina waxa laga dhaxay tigirka noogu soo gooyaan inoo celiyaan waxaan day ahaan lahay هاي لما مطر يقرن وما يمادان وحي كشقيان حلك وحياني حتى وفعيان صومالي قرن ما ينطلع يا حتى وهجاج marka dalkii dawlad cusub ka dhalatay madaxweyne cusub uu leeyahay maxaad ugu baaqaysaan dawladda cusub dawladda cusub waxaan ugu baaqaynaa inay si gurmad degdeg ah soo dhiso hadayna sii daynayaan dawladda Soomaaliya la hadlayaan ay oranayaan dadka inay meesha qaar joogay way jiraan qaar sii socda way jiraan oo doonayaan inay ka baxaan qaar doonayaan inay ku ceeshaan ay dadaqooyin wax walba diyaar u leeyahay inay sameeyaan joogaan oo damaanad lagu saaro way jiraan anagu ma nafso tahriibinay Suudaan xirafo ay dadka lagu xidhaadaan lahay caarfaan lahay waan qaawanahay waxaan ku dhigay aan soo tahriibinay soo jiraan rafaqi ayadoo ma haysta oo qaar diglaan in xabad rasaasta ku yaalan ay shaqo galiyaan ay dawooyin la qiimin ilaa ay hadda sidii ku jiraan la nooyay ama hal sidayna dawladda la qaadasho ama sidayna dadkan oo wadanka ku ceeshaan way sharci sameeyay damaanad la yimaada oo damaanad culus la yimaada ayaan ka codsanayaa in la hadla ama si xaragada wadankayga loogu celiyo okay macal waxaan diyaar u nahay dalkayga diyaar baan u nahay dadaan fadhino dalkayga diyaar baan u nahay inamadii meel bay naga geeyeen inamadii guriga ku dhisaan ayaada noo dhisa oo nooga shaqeeya naaga uurle nagu jira naaga caruurla nagu jira waan tacabsanahay walaalo وهجاج marka laga tago dadka Soomaalida ajnabi kale miyaa idila socday لا annaga cidna lama socon doonta Soomaali quraan ku soo raacnay yaman baan ka soo galay shan cishaan bad ku soo jirnay boosaasaan soo marnay waxaan ku badan baan soo marnay rafaad badan baan soo aragnay dib badan baan soo aragnay imka qaar dhaawaca naga tagay oo meel ay mareen aan garanaynin oo xabada ku yaaleen oo inuu naga dhimatay oo yaman naga dhimatay intooda iyo cid kale toona ma jirto yuhanka aasay yaman jooga gabadha magaceed dhimatay waxa la yiraahdaa leela saamad bay heedinantu كبر لو قلت والله أنا كنا ما فديسنا يبغى
iyaguna de si filan bay kuu baadilayaan soomaalina waa dhaqaajin laakiin dowladda cusub waxaanu ka codsanayna walaalo adigoo raalliya please maanta way noo yimaadeen qaar baa maanta noo yimi waxay dhahdeen gohom baan idiin sugayna waan idin diraynaa waxayna dirayaanna male lacagay nagu cunayaan kulliyoom sawiraana laga qaadaa kulliyoom maxaana laga qaadaa biilka iyagana meesha ku cunaa waxa reeraha igu noo soo diraan waa tahay jirta oo qada awoodin wax u soo diraan oo iska soo dhaqaajiyay dadna aanan ku tashanaynin ayaa wallahi nagu jiraa waa hagaag waxaan rabaa inaan idin weydiiyo safarkan aad soo gasheen ma yamanaad ka soo baxday idinka qaar yaman bay ka soo baxeen qaar Itoobiya ka soo baxeen laakiin anagu asaas labadayda hablood imka kula hadlay yaman baan ka soo baxnay waan wada socday oo saasaan doon ka soo raacnay yaman bayna ka keentay yaman laba bilood meel ilaa fadhinay oo doon ka suulayno geedo hoostiis ku jirnay wayna soo qaaday shan cisho iyo afar cisho wax loo kala garan waayay ayaan kusoo jirnay badda biiraan ku dhiman gaarnay waana la soo qaaday buurahooda baydan lagu hayay dowladda Suudaan la qabatay wayna xidheen waxaan ku leedahay lacag bay naga qaateen wayna xidheen qaarkood dadka way sii daayeen oo lacag kale sii qaateen oo lacag kale markay bixiyeen ayaa qaar la sii daayay qaar kalena inanta labadan hablood ay kula hadlayaan mid ka midna waa dadkii la sii daayeen ku jira mid ka mid dadkii weli lahayo oo inuu muddo 4 bilood u socoto weeye marka la sii daayeen way taariibeen oo saxarihii bay galeen saxarii baa laga soo qabtay waxaan ku uri ay nooc waan isku jirnaa adigu Soomaali qof naga maqan male waa wada hablo yar yar waa wada inama yar yar wallahi waxaan ku uri koobiyo jir sadiyo jir toddobiyo jir taayada chicken taayada kaaba ugu weyn waxa meesha maraya waa tahay lacag imisa idin ka soo baxday qarashaadka imisa idin ka soo baxday aad ku timaadeen Suudaan adigu dadka wallahi waan dhacanahay lacagana naga qaaday 2500 3000 qaar ba 4000 laga qaaday wallahi lacagtayadaasi hal cala la wallahi filan dadka naga qaaday ma hayno ma garanayno wajiyadooda lagama qaadano maxawil bay ku socdaan oo meesha markay tagaan magafay ayaa lacagta lagu balamo laga qaadayay oo biilashan halkan ay ku cunayaan macna qarash kala kama bixin dadka qaarna meel xashar la yiraahdo Itoobiya lagu geeyay xashar ayaa laga soo xawishay lacagtii imis maalina hadda xabsi ku jirtaan ugu yar baa inka ku jirtaan inta kula hadlaya oo ugu dambeeyay dadkii soo galay halkan labadii bilood baa ay dhamaanaysa aniga shan baa ku jira bishii shanaad baa imka ay dhamaanaysa waalidiinta iyo ehelka ma la xiriirtaan waa la xiriirnaa ayaga bilka noo soo diray waa meesha ku cunno waa hagaag waxaan rajeynayaa dowladda cusub inay arrintiin wax ka qabanaysaan rajeyn doonaa oo ay maqli doonaan ama ay dhegeysan doonaan aad baad u mahadsantihiin والله